maalmihii la soo dhaafay waddanka Faransiiska waxaa ka taagan xaaladahan mudaharaadyo ay daba socdaan rabshado burburin baabi'in iyo waliba bililiqo ayaa waxay ka socdaan qaar ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn waddanka Faransiiska oo ay ugu horeyso caasimadda Paris. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نصعب شرفت بدن سوداد مركلك سوداد مقال كلا ولا الكسائب كان اسمه سوي channel كا سيدو كلا فيسبوك بيج كا هوسو برو وحاج لقيا بقينا كاسو هالبحر مقال ذان أو عاد سداد ماشين كوبينيسو أما ضد كان سيدان وبوقا إنتان وضد أو خلقيا ودوين كسوسو بحمعين هذا بقى ماشس ووضن كفرانسيسكا ربشدان كسو عاد وضن كفرانسيسكا وحا أي بلاودين مال نماذي تلاذا وحين كبلاودين زون كتيرسان أديقا عاصمة باريس مع جار كذا أو ليرادو نانتيخ wiilkan aad arkaysan sawirkiisa waxa uu ahaa 17 jir waxaana markaasi la sheegay in hooyadiisa kaligiisa ay haysatay ama ugu yaraan wiil uu kaligiisa u ahaa waxaana uu iska ahaa wiil markaasi adig waxbarashadii ka haray laakiin saas ay tahay markaa shaqaysto oo ku shaqaysto pizza delivery waxaana markaa subaxnimadii talaadada traffic ahaan booliiska ay u qabteen gaari uu saarnaa waliba sida la sheegay ay la saarnaayeen laba wiil oo kale oo sida akhbaar dhan ahaan markaas ay sheegaysana la yiri labada wiil waa isqarinayeen marka muuqaal ayaa social media soo galay oo ku tusayo wiilkan oo markaasi gaari jaala ama huruuda saaran kadibna labadan qof oo maaragtay booliiska ay hortaagan yihiin kadibna waxa la maqlayaa dhawaaqa hal rasaas taas oo la sheegay markaa inay ahayd midda wiilkan dishay sidii ayuuna wiilkii shil kala miya intuu ku galay adiga meeshii ku geeriyooday oo ku nafbaxay kadibna dilkii wiilka la dilay oo ninka booliiska u dilay ayaa waxa loo ekeysiiyay markaa waxaan la yiraahdo macnaha dil kama macnaha waxa la yiri ninka booliiska waxa uu ka cabsanayay in wiilkan yar uu weerar sameeyo ama hub ula soo baxo oo laga ma dhigin macnaha dil oo qofkan inuu si kas u dilay tii ayaa keentay markaa dadka inay ka kacaan oo ka mudaharaadaan hadaba waddanka Faransiiska oo ay ku badan yihiin markaa Algeria oo markaa wiilkan yar buu asal ahaan ka soo jeeday iyo Morocco oo awalba markaa dib ku qabay ama ka sheeganay booliiska ayaa arintan wiilkan lagu sameeyay aad iyo aad uga xanaaqay sidoo kale xitaa hooyadiisa hadashay waxay tiri ninka booliiska wiilkan markii uu arkay inuu carab yahay wajigaas inuu carab yahay kaliya ku filnaaday kadibna wuxuu iska go'aansaday inuu dilo marka adiga si kasta ahaato horta rabshadahaasi meeshaas ay ka bilowdeen kadibna waxay noqotay inay u gudbaan magaalooyinka kale oo ay ka mid yihiin hadda sida Marseille oo kale Lille oo kale Bordeaux oo kale iyo magaalo kale oo la yiraahdo Roubaix marka hore madaxweynaha Faransiiska isaga maaragtay arintaasi wax kama una sameyn laakiin waxay noqotay adiga maalintii shalay ahayd ee Khamiista iyo maantaba waliba sida la sheegay inuu shirar degdeg ah oo uu qabto marka taas oo guud ahaan ayna raacday marka ay mudaharaadyada bilowdeen oo haddana rabshado ay ku sii darsameen in ciidan gaarayo 40,000 ilaa 50,000 lagu soo maaragtay daadsho waddanka marka dadkan banaanbax rabshadaha wato sameynayo train stationada basaska gawaarida dukaamada wax waliba ka soo horbaxo way burburinayaan way jajabinayaan way gubayaan markii dambena xitaa inkastoo la soo xiray ninka oo maaragtay dilka geystay sidaan aqriyay haddana saas ay tahay laakiin weli ma aysan joogsanin waxa la sheegay markaa xilligan hadda la joogo inay tirada marayso inta qof oo la soo xiray oo maaragtay mudaharaadyadaas ama yani banaanbaxyadaas lagu soo xiray inay ku dhawaanayaan 900 oo qofood gawaarida la gubay ayagana sidoo kale waxay ku sii dhow yihiin 50 shalay oo kale hadda markii ugu dambeysay ama ilaa ay xitaa maanta marka la isku daro waxa la sheegay in 30 ku dhawaad maaragtay ka tirsan ciidanka ama booliiska oo maaragtay howlgalkaas dadkaas ay ku stop gareynayeen sameynayay ay ku dhaawacmeen marka runtii waa rabshado aad iyo aad u badan marka aad aragto muuqaalada dhankaas laga keenayo ay yihiin markaasi wax laga naxayo dadkana sida ay sheegayaan dabcan waxa ay u badan yihiin dad in badan dulqaatay artikalada ay qorayaan galbeedka oo kale markaad fiiriso waxay leeyihiin wiilkan wax oo criminal record ma lahan laakiin haddana sidaas ay tahay ilaa sanadkii 2021 waxa la qabtay 5 mar ay qabteen booliiska 5 marbana amar diidu sameeyay taasoo xitaa hadda marka aad muuqaalka daawanayso aad ka dhex dareemayso sababtoo isagoo qorigii lagu haayo ayuu maaragtay uu sii dhaqaaqaya dabcan si kastay ahaatana يعني marnaba markaasi ma siinayso kulay qofka booliiska in wiilkan dhalinyarta uu arkay rasaas uu ku furi karo ugu dambeyn ninka la soo xiray oo booliiska ay dilka geystay lawyerkiisa ayaa asna sidoo kale hadlay oo wuxuu leeyahay macnaha
way uga fakatay inuu dilkaas geysto muuna rabin wuuna ka xun yahay macnaha raaligareenu ka bixinaya in falkaas uu sameeyay laakiin waa dabcan maraysan wax dareen marka la isku soo dardaro waxa dareemaysaa in dadka madowga ama carabta ku nool wadanka Faransiiska ay wax badan u soo joogeen oo wax badan ay arkeen maaragtay ishag adiga in lagu dul sameeyay ama ciidanka ay kula kacayaan hada dabcan hadii hal mar ay sidaan ay u kacaan waxaan u maleynayaa wax ay ku heli karaan waxa ay rabeen ama ay xaq u lahaayeen kulay meesha isku dhamaatay sidee noqoto baan arki doonaa insha Allah waa maasantiin inta muuqaalkan daawateen inta muuqaalkan kulmi doona waxaan idinkaga tagay nabadda